لبا أري أو أف عربية لكن علمي نفسي معنى كلا أنت بدن خويا لنكرة وداوينت الحزن ووضنا كنا وشين وحلا sadness الاكتئاب نو depression في الصومالي أملا أوروغو أما مروغو ولع والبهار والول يعني رياضة صار له رنك رملا وكم معنى ددوي أري كان لبضع أري اللغة العربية واسكو معني وكل حيل ديرينون حزن جوا مروجو اكتئاب كنا مروجو لكن في الشدة والمدة الزمنية بيكوك لقديسين اكتئاب كوا مروجو كوين حزنك حاجة وقتك يشوغيسو iyo marka loo eego xagga xoog badnida ama inta ay ka xoog badan tahay ta kale luqada carbeed حزن الرجل حزنا وحزنا يعني ومرغودي ويان كئب الرجل أي تغيرت نفسه وانكسرت من شدة الهم والحزن ونفتي سابربرتي murugo daraadeed iyo urugo iyo urxumo ولذلك بردولك وكلا waxay dhahdaan اكتئب وجه الأرض أي تغير وضرب إلى السواد حزنه markaynu dib ugu soo noqono markaa murugadu وعاطفة كمدة العواطف الإنسانية يعني waxay dhahdaan qofka bini aadamka عواطف buu leeyahay iska soo horjeeda oo uu ku muujiyo mashaacirtiisa ama dareemadiisa عواطفtaasi ha ahaadaan مثلا cadho baqe farxad rayrayn raalli ahaanshiyo firdhasho waa عواطف qofka bini aadamka ka soo fusha ولذلك عواطفته dhammaantood ilaahay baa ku abuuray qofka مثلا masalada tan ilaahay quraanka wuxuu ku leeyahay وأنه هو أضحك وأبكى رب سبحانه وتعالى إسقى وحكا قسلية وكأوهية إذن وحن لنا أصل المسألة حزنك هي مرقدة هي اكتئابك أصلها ومن فطرة الإنسان أما قفك بن آدم كأبورك سيكمديها إلى أن القرآن كوحكت الماما يقولنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون آدم iyo intii la socotay markii laga soo saaray jannada waxa la yiri dhulka u daadaga hadii hanuunu xaqayga idinka yimaadaba ilaahay subhanahu wa ta'ala cid raacda hanuunkaasi fala khawfun alayhim wala hum yahzanun baqa korkooda ma ahaanin murugana korkooda ma ahaanin siiba cidda rumaysay maalinta qiyaamaha yawmul qiyaama baqa iyo muruga toona qofka korkiisa ma aha muslimka ilaahay subhanahu wa ta'ala isagoo nabi muhammad la hadlaya alayhi salatu wassalaam ayuu wuxuu leeyay yay ku muruga galinin dheeraynta ay u dheeraynayaan xagga gaalnimada ilaahay waxba ma yeeli karayaan ilaahay baa wuxuu rabaa subhanahu wa ta'ala إننا يحظ أما ديفكو يالنين آخره لعلك باخع نفسك لا يكونوا مؤمنين أما كي إلهي وأبي بكر إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا أصل المسألة إخوتي مركا وحين لأني حزنك مروغا ليد هذا لكن مروغدو هدي حد كيدا دافته حنون بيسو بدشاه xanuunka marka ay isu bedesho xanuunkaas baa la yiraahdaa depression ama iktiaab la yiraahdaa waa qofka oo murugada hilmaami waaya oo dabeetana psychologically fikirkiisu isbedelo oo ay xad xanuun ku gaadho culimada bad waxay yiraahdaan erayada ah hamiga iyo qamiga iyo xusnigu waa saddex eray oo isku macno ah laakiin waqtigay ku kala gadisan bay yiraahdaan xusniga waa murugo wax tagaya غمiguna waa wax markaa ku haysta murugada ka taagan humuumti iyo khawfkuna waa waxa soo socday mustaqbalka ku saabsan
laakiin culamaa'i nafsi qaybo ka midii waxay leeyihiin maya hamiga iyo qamigu waa natiijo ka dhalata xusniga ama murugada ka dhalata si kale haddaanu tilmaamo adduunka aynu ku noolahay waa meel loogu talagalay in laynagu itixaamo waa meel cidhiidhi iyo dhib iyo wax ku cadhogeliya ay buuxaan waana waxyaabaha jannadu ay kaga gedisantahay adduunka jannada ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa laa yamasuhum fiiha nasabun inaan wax dhibi dadka haleelaynin